السلام عليكم ورحمة الله حسين أكسر مسح معلومات waxaan ku eegi doonaa sidii aad online lacag u samayn kar lahayd adigoo isticmaalaya toolkan cusub ee Google ku soo saaray boqolkiiba boqolna si bilaash ah ku isticmaali kartid adoo ku channel fadlan subscribe ku dhufanay badhankaasi xaq soo yaal gamalkan furnaysa ogaad mar walba maskax macluumaad soo geliyo soo kana ilmaha muuqaalkan leeg tiraahdo ku dhufan sulka xaq soo yaal kor u jeeda soo asxaab badan u si gaadho oo algorithm ku caawiso looga faa'iideysto muuqaal toolkan maanta ka hadli doono waxa la dhahaa Google Stitch oo qaybta description dhigi doona oo aad ku soo dhufan kartaa kadib wuxuu keeni doonaa website sidan oo kale ah waa inaad si talaabo ay la socotaa haddii kale isma ka qabanaya waxa ka hadlayo oo meel xaqiiqa hadhi doonta laakiin haddii aad si deeply oo qoto dheer oo kale iigu fiirsatay oo la socotid wax walba suu ka xirmi doona waan ku tusi doonaa kala inta uga sameyn markaad website-kooda usoo booqatid Google Stitch-ka wajahadan oo kale aad ku keeni doonaan oo design at the speed of AI marka Google Stitch ku qabanay waxa loo UI ama user interface-ka application intaan design oo kale waxa la isticmaalaa waxa loo UI UX designer dadkaas la shaqaaleysiiya Google Stitch wuxuu qabanaya guud ahaan inuu ku nashqadeeyo UI haddii mobile yahay iyo haddii website yahay labadaba ku nashqadeynaya sidoo kale haddii specific sketch oo Figma badanka developers ku ama designers ku design gareey jireen haddii aad haysalkan ka soo gelin kartaa oo aad halkan sawirkaada ku dhufatay kula ka soo gelin kartaa kadibna generate halkan boxka dushiisa ku qori doontaa waxaad u baahan tahay Google Stitch ku qabto marka halkan soo ku sharaxaya transform ideas into UI designers aragtida maskaxda ku hayso kale UI designers oo generate garanaya pageski oo UI designers waxa weeye tusaale kale mobile app oo kale hadda isticmaalisi badhankii lagu dhufan lahaa page soo ekaanay login soo ekaanay waxa soo dhan baa la sii nashqadeynaya intaan la programming coding xal loo gelin haddii mobile-ka yahay iyo haddii web application yaa ku dhisan garanay marka inta markaas la fahnay oo Stitch-ku soo ku sheegay wuxuu ku qabanay UI UX designer-ka ama specifically UI ku design garanaya halkan waxa ku qoran tusaale oo kale iyo nodes gareeyo tusaale kale simply soo muuqaalku u talax tagin oo kale waxa ku qoray time management app oo kale hadaan ku dhufto halkan mobile ba doonaysaa mise web tusaale kale mobile ka ku hormaro oo doo generate design wuxuu keen doonaa page ka sidan oo kale ku sheegaya inaad Google account kaaga gashid waxa laga maarmaan inaad Google account kaaga gashid marka Google account kaaga galay next ku dhufanaysaa hadaa hore ugu jirtidna Google account kaaga kuwa halkaas soo baxad mid ka dooranaysa marka halkan page sidoo kale ku keeni doonaa dhinaca bidix wuxuu ku tixi doonaa examples ama tusaale oo kale indoor plant care dashboard oo webka ah tusaale kale ku dhufatid oo kale wuxuu ka tusi doonaa suu eegyahay oo kale oo pageska oo dhan buu design gareysay artid baa markuu inoo soo baxo arki doontaa marka tusaalaha wax ka jahan qaadi kartaa oo hadda doortid oo kale wad weydiin kartaa halkan in wax kasii bedelo oo design ka saas ku qaadan kartaa halkan sadda eegtid 17% buu shaqadii wadaa waxa xusid mudan Google Stitch wuxuu ku siinayaa 100 generation bil walba 100 jeer inaad wax jirid gelisid marka ma gaari doonto heerka oo qofka ugu badan waxa laga yaabaa inuu hal app bishii sameeyo ama 13 app oo kale maximum way tusaale waa isticmaali kartaa laakiin xoog waqti beera qaatay waa soo laabanaya hadii ugu laabanana inaan inagu from the scratch ka bilowno zero ka soo bilowno marka tusaale kale marka waxaan u diray personal fitness training app inuu sameeyo app fitness ka shaqeeya oo mobile app waliba generate design oo kale daan ku dhufto sidoo kale waxa xusid mudan waa u soo laaban doonaa inaan inta rabaa feature-ka waliba feature aad u fiican oo waxyaalo badan ka caawinaysa markaad ku shaqeynaysid Google Stitch marka waxaan ku dhufanayaa inuu generate gareeyo halkan weydiinaya generate all screens dhammaan page-ka ama screens-ka loo baahan yahay ku generate gareeyo ku dhufo hal mar tusaale login page-ki dashboard haduu dashboard jiro hadii uu jiro meel fitness dadka ugu sareeyo fitness-ka oo kale la soo taxo meel workout-iska la sameeynaya marka page-ka oo dhan ku generate gareeyo halkan waa kuwan page-ka oo dhan waa kan generate gareynaya loading ku jira 53% marba waxay ku xidhantahay internet-ka xawaariisa laakiin waqti basaw badan qaadan mayso marka hadda saarti page-ka oo dhan wuu generate gareeyay tusaale page-ka ugu horeeyo oo kale saarti sign up oo kale oo iyo login-ka waa page-ka ugu horeeyay ee la iska diiwaan galay login laga soo galay kan oo kale wuxuu ku weydiinayaa profile-ka inaad dhistid magacaaga oo kale age-kaaga soo ku siiyo talada kuwa haboon oo kale ama jimicsiga kuwa haboon marka waa kanalkana waa dashboard-ka progress-ka waxa ka tusaya halkan jimicsiga kala duwan inta aad tusaale kale dhinacan ugu dambeeyana waa page-kan dheer ee progress marka saa artid app-ki guud ahaanba wisa single click hal badhay naga riixano wuxuu noo sameeyay dhamaan pages-kan u baahneen si app-keena oo develop garan marka xaga sarna magaciyo ka hasan welcome to the fitness app page-ki welcome page-ki user on board
waa userkii lasoo dhaweeyey dashboardkii oo ku tusayey inta miisaankaaga iyo xogta dheeraadka progresskaad barasid workout planka kugu habboon oo kale ama qorshaha kugu habboon oo kale exercise library progress tracking oo kale marka progresskaaga waxay marka hadda wuxuu ku leeyahay add dashboard mode options all screens wuxuu kuu sheegay abka badanka mobile apps marka la isticmaalayo waxay leeyihiin dark mode iyo light mode marka dark mode waxa weeye xilliga maalintii oo kale in indhahaaga oo kale uma fiicna kalarka badan ama xilliga habeenka oo kale inaad dark mode isticmaashin marka hadda dark mode rabtid inaad pageska u samaysa add dashboard mode options for all screens hadaa ku dhufto page kale iyaguna ay generate garanaya berigii hore marka la sameynayo UI-ga oo kale lacag badan baa lagu bixin jiray oo UI designer waa inaad doonatid waana stepka xiga aan ku tusi doono si aad lacag uga samayn kartid adoo skillkan way fiican tahay inaad samaysatid oo badanka waxaan dadka kula taliyaa in skillka mar walba qof skillska kor u qaado ee ayada laftirkii hadda waxay noqotay skill gaar oo la barto oo 10 sano soo socda waxa laga yaabaa xirfado badan inay hawada ka baxaan oo dadkii AI-ga sida waxaan u bartay inay ku shaqeeyaan marka page-kii almost waa kan isaguna sameeyay oo light mode u sameeyay dark mode kuwan saaraysa artid dark mode iyo light mode hadda areada guud stitch si loo isticmaalo iyo stitch waxay qabato iyo sidii idea aad doonaysid ama abiska doonaysid uga dhigi lahayd kuwa live ah oo si wacan u shaqeynaya waxaan rabaa intaan ka bixin stitchka hal feature oo fiican ku tuso tusaan oo kale hadaan dib ugu laabto projectska oo iconka ku dhufanaya markaad stitchka generate garanaysid waxaa jira kan aynu hadda isticmaalo experimental mode kala dhaho experimental mode ku siinaya Google Gemini 2.5 Pro ku siinaya coder oo ku ogolaanaysa in waxyaalo tijaabiso oo habka ugu fiican kugu jira sidoo kale waxay ku ogolaanaysaa in ay ku kor garayso oo abkii kaaga dhigto mid ab caadi oo diyaarsan marka waa isticmaali kartaa inaad standard mode ka isticmaali kartaa laakiin ka ugu fiican kula talin waa experimental mode ka isticmaasho waayahay hadda soo aragnay sida loo sameeyo UI designerska oo Google AI toolka Google iska leeyahay bilashka kugu qabanayso marka hadda hadaad timaado website-ka Fiverr oo kale waa habka aad lacagta uga sameyn kartid su'aal kale UI designer hadaan ku qoro waa kan UI design wax ku soo baxaya freelancerskan kala duwan oo freelancersku waa dad xirfadooda ku shaqeysta kale kan oo kale wuxuu ku dhisan garanaya website UX designer mobile apps oo kale ku dhisan garanaya Google Stitch Arcs labadaba ku jireed garanaysa waxa uu yara ka qaaday $40 kani $120 buu yaraan ka qaadaya su'aal kan oo kale hadaan soo furno wuxuu leeyahay I will do a Figma design waxaan ku dhisan garanaya Figma website design Figma UX website mockup marka waxaan ku dhisan garanaya ku leeyahay seen ku saaranay Google Stitchki design-ka UI ku dhisan garanaya sa artid 100% waxa ka qurux badan ka ay sameynayso Stitch sidoo kale Stitch marka joogtid oo kale waad export gareyn kartaa oo hadaan dib u laabto design-keenu sameynayo kale fitness oo kale waxa ku dhufan kartaa halkan oo ku dhufan kartaa download kadibna waxa export gareyn kartaa Figma ama code ahaan badalkan ku soo copy gareynaysaa code kana qaadanaysaa kadibna waxaad u diri kartaa programmerska su'aal kale bisha dhan hadii aad design gareysid 10 app oo kale oo aynu ku dhufano 125 oo kale oo ku 950 oo waa kun ka badan bisha marka Soomaaliya dad joogti waa ina ku filan tahay kaliya Fiverr ma aha freelancersku waxa jira freelancers ciida ka badan oo aad xirfadaas soo badhay kartid waa ogahay markaad bilowga tahay xogaa way yara dhib badan tahay laakiin qiimaha laftirkiisa dad qiimaha ku bilowdid oo kale $30 oo kale $50 oo kale marba kor la sii kacdo oo kale shaqadaad qabanaysid shaqo wanaagsan qabato oo de stitch wax walba shaqada daaqad ku qabanaysid marka way ka dhaqsiyo badnaanaysaa freelancerskan kale markii shaqada soo qabanayaan marka habkaas waa habka lacag uga sameyn kartaa oo isticmaali Google Stitchka kuna la raya freelancing websiteska sida Fiverr oo kale marka hadda ka hesho muuqaalka fadlan subscribe ku dhufan badhanka saaka ku yaala gambalkana furnaysa oo gaadmo soo muuqaal soo geliso kana helmaa muuqaalkan lecture ahayd asxaabta la sii wadaagtid si ay iyagu uga faa'iideystaan intii muuqaalka xigkun doona. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.